guul iyo gobonimo ayuu shirkaasi loogu dhamaaday waxaan leeyahay dadku waa iska goor dambe waa daalay waxaan ku soo gabagabeynayaa hal ujeedo meenu dhamaantiin u shaqeynayna haday tahay wasiir madaxweyne ilaa macallin ilaa kormeere waa inaynu arday wax barno dhamaanteena waxaan rabnaa inaynu ardayga tayadiisa wanaajino libta iyo libinta iyo guusha iyo laboontida mar walba waxa la ummadda iyo dadka bulshada tixraac iyo talada iyo guddoon kale meesha ay ummaddu jamhuurkeedu taagan yahay ay maraysaa caqabad kastoo jirta sidaa daraadeed horta suurtagal ma tahay in aynu shaqaalaheena maanta 900 ee laanta ah ama 1 milyan qaata badankoodu celcelis ahaan inaynu midkiiba u qorno $400 ama $500 bishii suurtagal ma tahay marka koobaad arrinta muddo la darsay muddana waa la baarayay waa suurtagal laakiin sidii ay suurtagal ka ahayd marinkeedii iyo majaraheedii iyo sidii aynu sharciyada u waafajin lahayn ayuun baynu imika dabaheedii qaadanaa insha Allah ta'ala boarding hablaha isna in laga fikiro rag uma hadii jeer boarding loo sameeyaa waxa kale oo soo qaaday amii dhaweysay primary schools lagu daro life skills kaasi markaa isagana oo maxaan ku raayay cunto karintii oo paintingii IT-gii markaa fikrado badan baa laga keenaa saate finalka si sanad oo waxyaalaha soo socdo hadii la hayraa si ay qorshe uga soo baxo waxa lagu dari doonaa kala tusaalahan waaxda dadban oo kala raacin doona action plan-kaasi hadhow toole dugsiyada hoose ee miyiga ah ku yaala in laga dhigo dugsiyo hoose dhexe sare wax walba action plan-koodii sanadlaha ahaa maxaan ku dhaday wixii soo socdo noqonaya in lagu daro hadii la doonayo horumar la gaadho aanu qorshe jira hadaanu qorshe jirin micnaheedu waxa weeye waxba lama qabanayo horumarna ma jirayo marka qorshaha maanta aynu sugnay iyo hawlaha inoo qabsamay runtii waxay naga anfici doonaa sanadkan 2021 inaynu fulinta hawlaha aynu mideyno shaqadeena horta markasta waxa uu kaan doontaa si aynu qorshe fiican u sameysano hadaynu qorshe wanaagsan wax kasta sameyso shaqada wasaaradda way hagaagaysaa dabagalka madaxdu ku dabagelaysaa hagaagaysa waaxyaha garanagaasi waaxidada waxa ku dardaarmaya waxaad ka mas'uulka tihiin inaad shirro joogta la yeelataan toddobaadkiiba qorshe gaar ah toddobaadka sameysaan idigoo qorshe guud leh waaxda la fadhiista toddobaadkan maxay noo qorshaysan see loo qabanayaa kadibna toddobaadku markuu dhamaado maxaa qabsoomay taas waxay ka fududaynaysaa hadhow bisha markaad warbixinta soo diraysaan inay ka fududaato markaa warbixintii bishu insha Allah imika January baynu ka bilaabi doonaa warbixintii bilaahayd baa la soo celinayaa bisha markaad warbixinta soo dirto hadhow warbixinta 3 bilood baa fududaanaysa ta 6 bilood baa fududaanaysa ta sanadka fududaanaya tan warbixintii guud ee wasaaraddu saasay noqonaysaa warbixin sugan si gaar ah sanadkan waxa la hirgelin doonaa iyadoo sanadka hore la bilaabay liisamadii macallimiinta oo macallin liisan haysan xama dhigi doono ama non formal ha joogo ama waxbarashada formalka ha joogo ama ta private ka ama ta dawladda labadaba taa ka dhigay macallimiinta guryaha iman doona looga yeeray guryaha wax ka dhigaya dhamaantood macallin liisan lahayn markaa xama dhigi doono insha Allah ta'ala sanadkan marka waaxda inoo qaabilsan hantidana registration kana waxa la sameeyay leefala loo kala sameeyay liisanka liisanka wax dhigista jaamacadan ka dalbaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shuruudo adag bay mariyeen wax ka dhigi jiray laakiin imika waxay noo soo kordhaween tiifdinta waxaynu nidhi mar hore inuu sheegnay 100 iskuul baa Soomaaliland laga dhisay had 100 isku cidii doonta ha dhisto ama dawladdu ha dhisto ama cid kale ha dhisto dawladdu 30 kamid ay dhistay waxaynu nidhi oo kale filimtii baynu ku jirnaa waxaynu soo iibinay oo kale imika la wada soo iibintiisii tabletiski meelaha carruurtu ay filqsan yihiin iskuulaha laga dhisi karaynu ku gaarsiinay waxaynu sameynay oo kale deeq waxbarasho oo jaamacadaha intooda badan Ilaahay khayr siiyay ay naga aqbaleen kun in ka badan oo macallimiina baynu tababarnay liisankii macallimada sanadkii hore 100 iskuul baynu isna sanadkana 150 waa inaan isku dayno ama laba baynu gaarsiino toddobadii meelood 100 baynu ka jiray 6 baa hadhay sanadkan hadaan 150 ama laba ka dhiso 4 baa hadhaya wasiirkii waxbarashadu sidoo u dhaqmaan eeganaya agaasimaha guud waxbarashadu soo dhaqmaan eeganaya agaasimo waxay soo dhaqmaan eeganaya marka inaga hay naga muuqato dhaqan wanaaga la sheegay sharcigu sheegay
deeq waxbarasho layna siiyey dowladda aynu saaxiibkani Ethiopia aynu mahadnaq u haynaa ayna siisay 450 deeq waxbarasho baa layna siiyey dowladda Ethiopia saaxiibkana ayna siisay aynu ugu mahadnaqayno abaal iyo ajar aynu abaal ugu hayno mar horena ayna siisay 370 waxa weeye waa shahaadada koowaad amba undergraduate degree qofka aan jaamacad horugelin dugsi sare ka baxay iyo inta kale oo ah postgraduate ama qof shahaado labaad diyaarinaya shahaado labaad oo tii hore ka sareysa waxaan doonaynaa markaa laba wax inaynu sameeyno guddi baynu saarnaa deeqaha waxbarasho oo komishanka tacliin sare inuu wada jiro inaguna aynu ku jirno dugsiyada gaarka loo leeyahay ku jiraan oo jaamacaduhu ku jiraan maxaynu eegaynaa horta dadkaynu diranaa inuu noqdo dad u qalma oo competent oo aqoon taalaho ka bixi kara cadaaladda sidee loo eegayaa marka hore waa inay jirto fursad loo sibayay equal opportunity